waxaa maanta deegaanka hodan ee degmada Garbadadar lagu caleemo saaray suldaanka guud ee beelaha Abriin Suldaan Cismaan Ducaale Dirir. xafladda caleemo saarka suldaanka ayaa ahayd mid hanaankeyga dhicitaan aad loo soo agaasimay ayaa waxaa xafladani ka soo qayb galay wufuud dhaqameed ka kala socday dalka Djibouti iyo waliba guud ahaan gobolada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay dalka Somaliland. siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahan haween iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyn waxaa madashaasi furay gudoomiyaha degmada Garbadadar Cabdilaahi Kalluunle. geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka ee beelaha Abriin iyo waliba madax dhaqameed ka kala socday gobolada iyo degmooyinka dalka. sidoo kale waxaa xusid mudan oo goobtaasi ka hadlay hoggaan dhaqameed ka socday dalka Djibouti. dalada ugu sareysa ee beelaha Cismaan Muuse ee loo yaqaan golaha dhaqanka beelaha Cismaan Muuse markii ay muddo ka shaqeynaysa sidii loo dooran lahaa suldaan waxa ay dooratay Suldaan Cismaan Ducaale Dirir. way suldaan saacada ku soo dhawow wax badan baan wada hadlaynay wax badan buu tilmaanaa Suldaan Cismaan wax badan buu diyaaradu saaraa maanta soo caga dhigat waa professor aad baa loo asiibay waa garabkay waa soo dhaweynayna uu harsanayay baa tahay waan ku ducaynaynaa curadkii hadii la igu sheegayna anigoo curadnimo ku hadlaya waxaan ku leeyahay ku soo dhawow waanad mahadsantahay. dadkii halkaa yimid dowladna waa mahadsan yihiin waxaan mataqaanaa aan ku taaniidinaya anigoo la socday wafdigii Djibouti ka yimid sabab ugu soo sharifay sabab soo raacay waxaan halkan ka arkayo Sultaan Cismaan Ducaale waan la joogaa waa sharaf weyn وأنه يعني عادتني إسكو ضد مدن هاي إسكو دين إسكو عادة waxaan suldaan ku sidaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka salaantoodii suldaannimo ay ku aqoonsadeen suldaan tahay oo suldaan tahay Somaliland ayaan ku sidaa iga gudoon. waxaan kaloon aad iyo aad halkan annagu u bogaadinaynaa madaxda jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo dhammaan golaha wasiirada iyo agaasimayaasha ay magacaabeen. waxaanu leenahay beeshani waa beeshii xisbiga kulmiye la halgantay miisaanka agtiisa ku culus bini aadamkana ku culus Allah kugu asturabaan ku leenahay waa ku ducaynaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaashana waa mahad celinaynaa ka gobol ahaan iyo ka mas'uul ahaanba aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa. ugu dambeyntii munaasabadani waxaa soo afmeeray suldaanka guud ee beelahaasi Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar iyo suldaanka maanta caleemo saarkiisii uu ka dhacay deegaanka Garbadadar Suldaan Cismaan Ducaale Dirir oo si rasmi ah uga mid noqon doona hoggaan dhaqameedka gobolada galbeedka Somaliland. laga soo sheekeeyay sida uu maartay awalba u shaqeynayay maanta inuu ii soo kordho garabkayga noqdo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waana ii sharaf gaar ah aniga si gaar ah iyo sharaf igu tahay. marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay ducada inoo aqbalo maanta salaadiinta iyo culimadii dhammaan waxaan ku codsaynaa inay noo duceeyaan intayada meesha wada degta min bari ilaa galbeed in Ilaahay isku keen walaaleeyo wixii tagayna Allah inaga saaro Ilaahay inoo aqbalo. Istaba ha ahaatee waxaa xusid mudan inay munaasabadda caleemo saarka suldaanka guud ee beelaha Abriin ay ahayd mid hanaankeyga dhicitaan aad loo soo agaasimay. Xuseen Caatiye Jamaat Television caalamiga Universal TV magaalada Garbadadar ee ka tirsan gobolka Salil.